BBC da iyo Voice-ka laba wasiir oo midna Puntland joogo midna uu joogo Soomaaliya waxaan leeyahay labadaasi waxay ku hadlayaan waxba kama jiraan waxaan jecelahay inaan saddexda wasiir ee BBC da ka hadlayba alla hadlo waa wasiirka Soomaaliya waa wasiirka Puntland ee batroolka waa wasiirka batroolka ee Soomaaliland laba nin waxaan leeyahay ninka yiri waxbaan gani anoo gol iyo cayn jooga ee yiri badii garacad baan gudub u weydaarin godka lagu cadaabiyo muxuu goow been sheegay ninka Puntland jooga nugaal tale laga weydiin maayo waa wadan Soomaaliland la yiraahdo ninka xamar joogana waxa la yiraahdaa adeersan weynta Kismaayo joogto ordo batroolkeeda ka hadal kan kuma xukume ma xukuntid mana lihid wasiirka Soomaaliland waxa leeyahay dadkaaga yaan laga ka haysanin baahiyaha ay ka hadlayaan uga jawaab waxay ka hadlayaan biyo waxay ka hadlayaan iskuul waxay ka hadlayaan masaajid waxay ka hadlayaan horumarin inta dawladda ku soo noqoto wixii aad haysana si wixii ka maqan ee aadan qaban karayna madaxweynaha iyo dawladda kula soo noqo dadkaaga yaan laga ka haysanin waxaana ku fiican tahay hadalka aad hadlaysaa inuu garowshiyo ku jiro dadkani waxay leeyihiin dhulkani waa Soomaaliland u garow baahiyahoodana ka jawaab haddii aadan adigu markaa keliga baahiyaha ay doonayaan aadan qaban karayna xildhibaanada kula soo noqo madaxweynaha kula soo noqo wasiirada deegaanka kula soo noqo yaan laynaga ka haysanin dadkii shacbiga halka joogana waxa leenahay waa idin maqanahay aan xildhibaanada u nahay waxa baahiyihiina degdeg baa looga jawaabayaa maanta meesha aan shirka jaraa'id ku hayaa waa madaxtooyadii madaxweynaha iyo wasiirkiisa madaxtooyaduba way naga ballan qaadeen cabatinkooda in laga jawaabo in waxay u baahan yihiin loo qabto kambaniyadana waxaan leeyahay lacagtii advocacy-ka ahayd ee had iyo goor kambaniyada deegaradag iyo burca jooga ay dadka kala siin jireen kan xudun iyo taleex baarayaan oo inuu sidii kuwii garadag iyo wuxuu siin jiray burco wuxuu siiyaayo wasiirka haddii aanay u dhiibin ay iyagu geeyaan haddii ay hayaanna dee wasiirka u soo dhiibaan intaas hadalkaygu ku eegay wixii su'aalahay weydiisaa waa idinka jawaabay haddii xukuumaddu aynay dhaafsiisanayn Hargeysa oo wasiiradanba ayna ka bixin Hargeysa oo aanay deegaanada sheegaysa aynay warba ka hayn in la sheegto maxaa ku diidaysaa dee lama sheegan karo qaladka gudaheedna iyo sheegashada Soomaaliya way kala duwan yihiin waa kuwa shacbiga meesha deegaanka jooga ay ka hadlayaan ay leeyihiin dalkani waa Soomaaliland baahidayada laga jawaabo xukuumaduna waa uga garaabaysaa madaxweynaha imkaanu ballansanahay wasiirkiisa madaxtooyada waanu ballannay wixii ay qaban karayaan ee baahiya waa la qabanaya marka cabatin waa laga jawaabay xukuumaduna madaxtooyada ma dhex joogtay taleex baan noo raacinay namadan kala nala socday iyaga weydii markaan taleex tagnay iyo markay buuhood la tagayaan iyo maaga badan iska daa oo kuwan kuwii tagay dawladuna burco iyo laascanood iyo meel walba way tagtaa